waxaan leeyahay waa wax lagu qoslo marxaladda hadda aan joogno iyo waxa meesha ka muuqanayo waxaan doonayaa inaan cambaareeyo TV-ga iyo raadiyaha la magac baxay Jubbaland oo ay xabashidu leedahay kuwaasoo ku caan baxay shucuun caa'iliya inay ka sheekeeyaan xaafadaha Soomaaliyeed dhaqankooda iyo sharafkooda iyo guurkooda iyo xurmadooda inay farageliyaan TV-gaasoo ku caan baxay saldhigiisuna yahay Kismaayan doonaya inaan cambaareeyo ku tilmaamo TV anshaxun aad u anshaxun waa markii saddexaad ama afraad ee shacabka Soomaaliyeed cadiban dhaqamadooda hoose shucuun caa'iliya ah uu TV-gaas baahiyo ama uu gaarsiiyo baraha bulshada waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed dibad iyo gudaha inaan u sheego waxaa ku jirtay hadalka TV-gaas uu baahiyay degmada Baardheer guurkii adkaada waa been degmada Baardheer diinta islaamku hadda kuma soo degin waxa weeye Soomaaliya oo dhan diinta islaamka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligiisii bay soo gaartay koox inta cimaamada qaadata diin sheegto dadka Soomaaliyeed ama gowracda ama u bootaysana way fara badnayd haddaad markaa adiga culimaa u diin igu sheegtay aniga waxaan ogaa TV-gaas xabashidu ay leedahay iyo wiilal yar oo kuray oo aan isleeyahay aqligoodu kuma filno inay meesha ka hadlayeen waxaan rabaa inaan apologies siiyo dhammaan hablaha Soomaaliyeed oo isku xurumo ah oo isku xuquuq ah oo ah sharafka ummadda Soomaaliyeed oo muxsiniin oo shariicada islaamka lagu dhalay laguna dhaqo kuna dhashay laguna guursado waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali ah diinta islaamka ku dhashay kuna dhaqmaya wiilal yar yar oo inta cimaamada qaato television iyo Facebook iyo ka hadla dhaqanka iyaga ma hadlayn karaan kurayda yararkoo meeshaas joogana waxaan leeyahay wixii TV-gaas aad ka tiraaheen waa uf ee ka istighfaarta TV-ga waa TV-ga Jubbaland la baxay ee saldhigiisu ay tahay magaalada Kismaayo oo ay xabashidu leedahay kana sheekeeyay shucuunta caa'iliyada dadka caa'ilada ah sharafkiisa iyo arrimihiisa gaarka ah uu ka sheekeeyaa waxyaabo fara badan oo foolxumo ah ay tabiyeen oo aad shacabka Soomaaliyeed ugu dhibsaday baan hore u jiray oo ka horeysay waxaan hadda ay Baardheer ka yiraahdeen waa mahadsantiin TV-ga iyo raadiyowga Andalus ee yaala jamaamada wuxuu soo xigtaa kuwa culimaa u diina gowracayana gabdhaha Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo dadka muxsiniinta ah marka kama duwana kuwa khawaarijta ee joogo jamaama iyo jilbe dadka gowracayo waana isku team oo waa teamkii Axmed Madoobe iyo Macallin Maxamed oo garabkii Axmed Goodana ka leexday una shaqeeya xabashida kuwaas oo doonaya inay haleeyaan dhaqanka iyaga sharafta leh mana ka yeelayno adaacadaha kale ma wax ka sheegno adaacadaatiina ma gabdhaha Soomaaliyeed wax ka sheegtaan waa dhaqan xumo weeye arrinta waa anshax xumo mana qaadan karno hooyooyinkana iyo walaalahano iyo dadka shucuuntiisa caaliyada in baraha bulshada loo gudbiyo ama fikir fool xun dadka laga muujiyo kuma adka Baardheer guurka sidii shariicada islaamka ay nafartay bay dadka isu guursadaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidii shariicada islaamku ay sheegtay bay u xididaan xushmad iyo xigtinimo iyo xididtinimo iyo xurmad iyo abti iyo seedi iyo wanaag baa meel walba Soomaaliya taalo laakiin dhaqamadan cusub oo gaaladu ay soo dhiibtay oo dadka marna lagu gowracayo marna lagu barakicinayo iyo cimaamadaha waxaan diidanahay kamid ah